sidee lacagta loola baxaa Binance? ugu horreyn waxaad tegaysaa meesha ku qoran tahay assets ayaad tegaysaa. assets markaad tagtid waxaad tegaysaa meesha ku qoran tahay send. hore waxay ugaa jirtay withdraw ay horaa jirtay, hadda send ayaa laga dhigay. send markaad taabatid waxaa ku soo baxaya options aad lacagta ku diri kartid. send Binance user, haddii aad qof isticmaalo ka ah Binance aad lacag u dirayso oo kale waxaad isticmaali kartaa Binance internal transfer aad isticmaali kartaa. oo maxaa ku diri kartaa? waxaa ku diri kartaa email ahaan ayaa ku diri kartaa. waxaa ku diri kartaa phone number. waxaa ku diri kartaa ID ayaa ku diri kartaa. haddii qofku isticmaalayo Binance si free ah ayaa ugu dhacaysaa, wax laga goosaa ma jirto. sidoo kale waxaad isticmaalaysaa on-chain withdraw ayaa isticmaali kartaa blockchain-ka adigoo dhex maraya. marka annaga waxaan rabnaa on-chain-ka inaan isticmaalno ayaan rabnaa, oo Binance user ma rabno inaan dhex marno. on-chain ayaan dooranaynaa. on-chain markaan doorano lacagta aan diraya marka waa maxay? ani marka waxaan rabaa inaan diro USDT inaan diro ayaan rabaa. okay, USDT-ga lacagtii igu jirtay oo $20 halkaas isoo dhigay. marka ani lacagta USDT-ga haysto waa lacagtaas ayaa haystaa, iyadan dooraa marka USDT ayaa maaragtay diraa leh. meesha marka address-ka ku qoran tahay waxaa laga rabaa inaan geliyo address. address muxuu u dhigmaa? account number ayuu u dhigmaa. address marka aan soo qaato marka exchange kale ayaan ka soo qaadan doonaa. maxio kale ayaan isticmaali doonaa. maxio kale exchange-ga maxi markaan soo galo deposit aan ku sameyn rabaa. on-chain deposit dooro, USDT dooro, BEP20 dooro, koobiyeyso. Binance ku laabo, address-ka ku paste garay, network maxaa ka dhigay? BEP20 ayaa ka dhigaysaa. lacag maxaan diraynaa? $10 ayaan diraynaa. okay, $10 markaan dirno meeshaan waxaa leedahay withdraw ayaa leedahay marka. okay, withdraw markaan dhahno wuxuu leeyahay confirm ayuu leeyahay. okay, wuxuu inoo soo saaray marka additional verification methods required. yacni wuxuu naga rabaa xaqiijin dheeri ah ayuu naga rabaa. marka hadda laba option ayuuna siiyey. labada option marka na siiyey waxaa waaye inaan samayno tusaale ahaan baaskii oo kale waa maaragtay biometriga ama security-ga telefonka ugu xiran, ama authenticator app ayuuna siiyey. marka authenticator-ka marka waa application weyn oo la isticmaalo oo maaragtay 2FA ayaa loo yaqaanaa, security-giisa aad u sarreeya. marka anaga waxaan dooranaynaa authenticator-ka ayaan dooranaynaa. marka authenticator markaan doorano enable ayaa siinaysaa. enable markaa siiso email-ka ayuu kugu dirayaa koodka hore. email-ka aad email-ka waa kana, koodka koobiye ku laabo. okay, wuxuu ku siinaa marka xarfo 16 ka kooban ayuu ku siinaa. marka xarfahaas marka waa inaad kaydsataa oo meel ku haysataa sida caadiga ah. xarfaha markaa kaydsano xarafkan hadda waa koobiyeynay. aadinaynaa marka application-ka authentication-ka ayaa ku dhufanaynaa. plus markaad taabto meesha hoose marka enter setup keyga ayaa dooranaysaa. marka code name-ka marka
meesha maxaa ku qoranayna magacaa ku qoranaysaa annaga maxaa rabnaa binance akoonka waa maxay waa binance okay binance markaad tirahdid waxaa rabtada kusii aqoonsan karto ayaa maaragtay sii raacinaysaa koodkii kiiga marka koodkii 16 waa gashee kadib waxaa leedahay add ayaa leedahay binance-ga ku laabo binance-ga waxaa leedahay next ayaa leedahay next markaad tirahdid ka soo qaado authenticator ku laabo riix soo koobiyeyso paste ku dhe submit dhe marka authenticator app verification uu qaata hadda ku xirma okay back dhe marka withdraw dhe marka hadda confirm dheh maxaad dooranay markaas asaga waxaa ku siinaa laba ikhtiyaar authenticator app email ayuu ku siiyaa marka authenticator haddii aan doorano keliya wuxuu naga rabaa inaan soo koobiyeysano waa soo koobiyeysanay paste ayaan dhahnay automatic emailka aad emailka marka aadid koodkaa noo soo dhacay koodka soo koobiyeyso sidaas lacagta ku baxda withdrawal process ayay ku jirtaa lacagta waxay ku tegi kartaa 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo u badnaan marka qaar 1 daqiiqo ku tagtaa marka meeshaan haddii aad u soo riixdo kale hadhow markii lacagtu dhacdo cagaar buu saarayaa waa isla arki doonaa email noo soo dhacay qaybta koreda notificationka la socotay haddii marka aan hoos u riixno cagaar bay isku bedelaysaa meesha oo micnaheedu tahay in lacagta ay baxday marka cagaar isku bedesho waa withdrawal successful 10 USDT magsiga marka aadna exchange kale marka bal in wax soo galeen iyo in kale exchange-gaasna faaruq u ahaa $10 waa tanaa soo gasho